dhacdo argagax fajicisiye ama kaag leh ayaa ka dhacday koonfurta waddanka Isbeen kadib markii 25 jir reer Isbeen ah uu toogtay labadiisa waalid. Ilmo yar uu dhalana uu dhaawac u geystay halka dhowr qof oo kalena uu dhaawac u geystay. Waxaana lagu soo waramayaa in ay dhacdadani ka dhacday magaalada El Ejito oo ku taala gobolka Andalus ee koonfurta waddanka Isbeen. Arrintan ayay booliska ku dhaqaaqeen eriyada qofkan 25 jirka ah ee falkan geystay ka oo ay habeenkii oo idil ay eryanayeen. Waxaana lagu soo waramayaa in ay dhacdadani ku naf waayeen waalidiinta dhalay 25 jirkan iyadoo ay dhaawac soo gaareen ilaa iyo 4 qofood oo uu ka mid yahay uguna daran yahay canug 7 bilood jiro oo uu dhalay ninka dilka geystay. Waxaana lagu soo waramayaa daal dheer iyo dabagal aan kala joogsi lahayn oo habeenkii oo idil qaatay in 25 jirkan uu aroortii hore isku soo dhiibay booliska. Sida laga soo xigtay booliska labada qofood ee ku geeriyootay goobta ayaa lagu soo waramayaa in ay yihiin labada waalid ee dhalay 25 jirkan. 4 qof ee dhaawacantay ayaa lala cararay isbitaalka iyadoo laga dayrinayo ilmo yar oo 7 bilood jiro ka oo la sheegayo in uu dhalay ninkan falka dambiga ah geystay. Falkan ayaa lagu tilmaamay mid argagax iyo fajicisaba leh. Waxaana lagu soo waramayaa gabar 2 sano jir ah iyaduna in uu soo gaaray dhaawac aad u daran. Haweeney iyo nin waayeel ahna ay iyaguna qabaan dhaawacyo daran kuwa oo ay booliska iyo hay'adaha caafimaadka ku tilmaameen kuwa halis ah. Sababta keentay toogashada heerka gaarsiisay ee qoyska dhexdiisa ah ayaan ilaa iyo hadda aysan booliska iyo hay'adaha ammaanka iyo garsoorkuba caddayn. Waxa ayna sheegeen in ay baaritaan iyo dabagal ku hayaan 25 jirkaana uu hadda gacantooda ku jiro waxna laga weydiinayo dilka uu u geystay labadiisa waalid kuna dhaawacay caruurtiisa isagoo dhaawac kalena u geystay 2 qofood oo waayeela ah kuwa oo hadda 4 lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanka Andalus ee dalkaasi Isbeen. Halka warka kiisa ugu doorkoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idin la socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.